dalka Maleysia waxaa maalintii 8aad la baadi goobayaa haweeney oo dhulku la go'ay. Rescuers in Kuala Lumpur are searching for an Indian tourist swallowed by a sinkhole. In ka badan 7 ayaa la baadi goobayaa haweeneydan oo 48 jir ahayd una dhalatay wadanka Hindiya, taas oo dhulku la go'ay iyadoo dalxiis u joogto magaalada caasimadda oo ah wadanka Maleysia ee Kuala Lumpur. Saraakiisha ayaa sheegay in baadi goobka la joojinayo maadaama khatar badan ay ka dhalan karto godka la qoday iyadoo haweeneyda la baadi goobayo. howlgalka badbaadada haweeneydan dhulku la go'ay oo socday tan iyo 23kii bishii Agoosto ayaa waxa u muuqdaa in uu guuldarro ku dhamaanayo. godka ay haweeneydani ku dhacday waxa uu dhererkiisu gaarayaa 6 mitir, waxaana muuqata inay yar tahay fursadda lagu badbaadin karo ama xataa meydkeeda lagu heli karo. dhacdadan oo si weyn looga hadalhayo dalka Maleysia iyo dalalka dariska la ah waxaa gurmadka ka qayb qaadanaya in ka badan 100 qof oo ah kooxaha gurmadka degdega. 18 saacadood markii la qodayay maalintii Jimcada ee godku ay ku dhacday waxaa la helay kabaheeda oo kaliya, balse 7 kadib ma jirto rajo laga qabo in la soo helo. 2 quuse oo isku dayay inay godka galaan ayay ku adkaatay kadib markii ay soo celiyeen biyo iyo qashin xoogan oo godka ku jiray, sida waxaa sheegay waaxda dabdamiska iyo badbaadada. dhacdadan ayaa cabsi xoogan ku abuurtay shacabka Maleysia iyo dadka kale ee halkaasi ku nool. mas'uuliyiintuna waxay sheegeen inay sameyn doonaan baaritaan ay ku ogaanayaan waxa sababay in godka uu la go'o haweeneyda. haddaba sidee ayuu shilkani u dhacay? bal aan isla fiirino mar kale. And take a look at this video from a street in Malaysia's capital, Kuala Lumpur. A woman is swallowed up by a sinkhole as the pavement suddenly collapses beneath her feet. People rush to help her. At first glance, the sinkhole didn't appear that big, but it's actually 8 meters deep. It's believed the 48-year-old woman, a tourist from India, was swept away via an underground current. So far, she's not been found. Rescuers in Kuala Lumpur are searching for an Indian tourist swallowed by a sinkhole. Though the search has been expanded to several kilometres of sewage line, there is still no sign of the woman. Malaysian officials have not yet found the cause of the 8-metre deep sinkhole, which opened suddenly under a pavement.